maxaad ka leedahay si kooban wallahi horta taa hal eray baan ka oranayaa Badriyow anigu waxaan leeyahay horta fanka siyaasadda laga daayo fankii siyaasadda meel ma wada galaan anigu faanin baan nahay ereygaasaan odhan lahaa Hey, what's up, Hamdi? What's up, Oda Shirwa? Adan maqashay heestu soo saaray dulo. Heeste? Ma maqlaniya waxa la yiraahdaa Sumar Meeshi. Oh, can I hear it? Oh yeah, what? Let's go. Kusoo dhawo ka bax. Haye dulo. Kusoo dhawo la wadiyo Media Show. Please share, like, comments and subscribe. Thank you. Maxamed Ahmed Bakal oo ciro ku magac dheer arrintaas oo la xiriiday in Somaliland lagu cusuriyay amaba laga sheegtay haddaba in fanaanka hadda ayaa la joognaa in bal arrintaas nooga war Badri Koosar waad mahadsan tahay waxaan caawa halkan soo fadhiistay horta ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin gaar ahaan ummadda reer Somaliland sida fiican uga dhiidiyeen horta Badriyo wax de cusub dhacdo cusub ayay hayd hawshaasina way jirtay weerarkaasi wuu jiray laygu soo qaaday oo gawaadhi dad badan ka buuxaan lay soo weeraray habeen hore ma jirtaa cid aad arrinta weerarka aad u aaneynayso amaba aad ka shakisan tahay wallahi Badriyo horta xilli dambe ahayd goor dambe ahayd anigii Cabdiraxmaan Caydiid oo wada socona gurigan ka soo baxnay dabeedna ilaa 3 gaari ayaan laga soo daatay baadeen anaguna markaan naftaydii badbaadino ayaanu isku daynay alxamdulillah horta Ilaahay naga badbaadiyay yahay Somaliland sidaad ogtahay fawda ma aha nidaam baa ka jira waad ogtahay ma jirtaa hay'adaha ammaanka ma u gudbiseen arrintiina Badro waa lagu horta hawsha waa lagu guda jiraa dawladana Baale Saciidi waxa ka dambeysay waa lagu guda jiraa way su'aashaday ugu dambeysay aad iyo aad marka hore u mahadsan tahay su'aasha bulshada isweydiinaysa ayaa ah in fanaanka aad ogtahay BK oo Kenya loo soo diiday ayaa leeyahay arrintan iyo xiriirkeed iyo qorshaha Facebook-yada arrintaas ayaa ku jirta maxaad ka leedahay si kooban wallahi horta taa hal eray baan ka oranayaa Badriyow anigu waxaan leeyahay horta fanka siyaasadda laga daayo fankii siyaasadda meel ma wada galaan anigu faanin baan nahay ereygaasaan odhan lahaa fanka iyo siyaasadda hala kala saaro waxaa jira dad badan oo adiga ku taageersan oo si weyn qaarkood cadho ka muujinaya baraha bulshada qolo kale si kale u dhigaysay fariinta bulshada ku taageersan ee Somaliland aad u diraysaa maxay tahay wallahi waxaan u dirayaa waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin ani Hargeysa waa magaaladeydii waan magaaladan ku dhashay ku dhaqmay ku koray waa dalkaygii hooyo waxaan leeyahay aad baan idinku mahad celinayaa meel kastoo joogtaan aad baan idinka mahad celinayaa malay mar labaad iyo mar saddexaad bulshada reer Somaliland iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan annaga wada soconay faahfaahinteedina uu sheegay Maxamed waana lagu daba jiraa waxaan u mahad celinayaa dhammaan ummadda meel kastoo dunida joogaan arrintan ka ficil celisay haddii af noqoto haddii ficil noqoto iyo haddii baraha bulshada noqotoba aad baan u mahadsanyiin waxaan ku darayaa oo kale in fanka iyo la kala saaro siyaasadda oo aan fanka la siyaasadaynin fanka iyo siyaasaddu isma geeyaan mana iskalaan aad baan u mahadsantihiin dhammaantiin arrintaasina insha Allah bidnillaahi kariim waxay noqon doontaa arrin dadka reer Somaliland ay wax badan macnaha ay kaga tusaale qaataan aad baan u mahadsantihiin dhammaantiin Maxamed Ahmed Bakal oo ciro ku magac dheer arrintaas oo la xiriiday in Somaliland lagu cusuriyay amaba laga sheegtay haddaba in fanaanka hadda ayaa la joognaa in bal arrintaas nooga war Badri Koosar waad mahadsan tahay waxaan caawa halkan soo fadhiistay horta ummadda Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay aad baad mahadsantihiin gaar ahaan ummadda reer Somaliland sida fiican uga dhiidiyeen horta Badriyo wax de cusub dhacdo cusub ayay hayd hawshaasina way jirtay
weerarkaasi uu jiray laygu soo qaaday oo gawaadhi dad badan ka buuxaan laysoo weeraray habeen hore. ma jirtaa cid aad arrintaa weerarka aad u aaneynayso amaba aad ka shakisan tahay? wallahi bedriyo horta xilli dambe ahayd goor dambe ahayd anigii cabdiraxmaan caydiid oo wada socona gurigan ka soo baxnay dabeedna ilaa 3 gaari ayaan laga soo daatay bacdeen anaguna markaan naftaydii badbaadino ayaanu isku daynay alxamdulillah horta ilaahay naga badbaadiyay. yahay Soomaaliland sidaad ogtahay fawda ma ahan nidaam baa ka jira waad ogtahay ma jirtaa hay'adaha ammaanka ma u gudbiseen arrintiina? بدرو والجو هرت هوشة والجو دشرا دولة أنا بعرف سعيدي وحا كدم بيسي والجو دشراها. way su'aasha ay ugu dambeysay aad iyo aad marka hore u mahadsan tahay. su'aasha bulshada isweydiinaysa ayaa ah in fanaanka aad ogtahay BK oo Kenya loo soo diiday ayaa leeyahay arrintan iyo xiriirkeed iyo qorshaha Facebook-yada arrintaas ayaa ku jirta maxaad ka leedahay si kooban? والله هرت تها هل قريبا كورن يا بدريو أنا واحد هرت فنكا سياسة على قدايو فنكي سياسة مال موضوع كلام نقول بان هاي إرجعسان أوران لها فنكي سياسة ده على كلا صار. حكيرا dad badan oo adiga ku taageersan oo si weyn qaarkood araka mu jireen baraha bulshada qola kala si kala u dhigaysay fariinta bulshada ku taageersan ee Soomaaliland aad u diraysaa maxay tahay? والله waxaan u dirayaa waxaan la aad iyo aad u mahadsantiin ani Hargeysa waa magaaladeedii waan magaaladan ku dhashay ku dhaqmay ku koray waa dalkaygii hooyo waxaan leeyahay aad baan idinku mahad celinayaa meel kastoo joogtaan aad baan idinku mahad celinayaa malay mar labaad iyo mar saddexaad ba bulshada reer Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan annaga wada soconay faahfaahinteedina uu sheegay Maxamed waana lagu daba jiraa waxaan u mahad celinayaa dhammaan ummadda meel kastoo dunida joogaan arrintan ka ficil celisay haddii af noqoto haddii ficil noqoto iyo haddii baraha bulshada noqotoba aad baan u mahadsanyiin waxaan ku darayaa oo kale in fanka iyo la kala saaro siyaasadda oo aan fanka la siyaasadeynin fanka iyo siyaasaddu isma geeyaan mana iskalaan aad baan u mahadsantiin dhammaantiin arrintaasina insha Allah bidnillaahi kariim waxay noqon doontaa arrin dadka reer Soomaaliland ay wax badan macnaha ay kaga tusaale qaataan aad baan u mahadsantiin dhammaantiin.